السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقييمها يقايها لو كسو دوادا هيكس تكنولوجي واداك براتين إني إذين سو قد بشو عشرة كسابسن graphical design video editing technology iyo cashara kale ku saabsan dhiirigelinta hadduu alla raali ka noqdo maanta waxaa idiin soo gudbin doonaa cashar ku saabsan sida loo sameeyo themeska footballka hadda sawirkan halkan aga jeedaan waxaa idiin muuqda laba kooxood oo Manchester United iyo Manchester City oo kulmaya maalin maalmaha ka mid ah kuna kulmaya stadium lagu magacaabay Etihad Stadium kulankana uu yahay kulan Premier League sidaan oo kale design ah sidee ku sameyn kartaa adigoo isticmaalaya Photoshop marka lagu soo dhawaada Higgs Technology haddii aadan subscribe noo ahayn YouTube-keena waxaan ku soo gudbinaa casharo aad u fara badan oo inaad subscribe noo noqo haddii aad ka faa'iideydo casharkaana like saar sidoo kale asxaabtaada u sii share garee marka aan rabo inaan aan sameeyo design noocan oo kale ah oo ka kooban 3 ciyaartooy iyo 3 ciyaartooy oo laba kooxood kala kooban ama hal ciyaartooy iyo hal ciyaartooy 2 iyo 2 6 ka dhigi kartaa calaa qof macnaha maahan inta ciyaartahan ay ku jirto meesha laakiin koox walba waxay leedahay iftiin ama wax laga daawado ciyaarta kaga laga daawado intee ka heli kartaa marka ciyaaryahannadan marka aad tagtid Google-kaaga ama aad browser-ka aad isticmaalaysid midka ugu fiican oo aad xiisisid ayaa tagaysaa waxaa furaysaa halkan magacan meesha ku qoran waa football render website-kaas ayaa galaysaa linkiga hoosena waa soo dhigi doonaa insha Allah website-kaas markaa gashid waxaa ka heli kartaa sawirka ciyaartoy kasta oo PNG ah oo background ka go'an yahay sida hadda halkan waxaa aga jirta ciyaartooyda Manchester City marka sidee u helaysaa halkan waxaa ku qoran Ingiriiska Spain Germany Talyaaniga Faransiiska Europe iyo America iyo other marka halkan Ingiriiska markaa tagtid Premier League Champions League iyo Liga 1 ku qoran Premier League tagaysaa kooxdaada dooranaysa hadda Manchester City aad doortay marka Manchester City doortay ciyaartooyda sidaan ay u soo baxeen sawiradan background malahan waa white background waliba PNG ay yihiin ma kaaga baahan inaad soo gurtid koox walba sidaas u soo dooranaysa Manchester United sidoo kale sidoo kale koox ciyaartooyda sidaan u soo baxaysa ciyaartooyda artida soo dooranaysa kadib waa soo download gareysanaysa sidoo kale Premier League loogada Google-ka ayaa ku qoraysa waxa ku qoraysa PPL ama se Premier League PNG logo.png ku qoraysa waa helaysaa ayadan insha Allah kuwan kuwa hore waa haddana tan ayaa cusub marka sida sameysid waxa imaanaysa Photoshop-kaaga waxa leedahay file kadib waxa leedahay new daaqadan marka sidaas kugu soo baxdo waxa sameynaysaa meeshan waa meesha wax laga bedelo cabirka halkan waxa waay meesha unit-ka laga bedelo unit-kan ayaa bedeli karaa waxaan u bedeli karaa centimeter marka u bedelo halkan ayaa waxaan ku qorayaa 6 waa macnaha width-ka ama balac waxa ka dhigayaa 62 halkan waxa ka dhigayaa waa jooga 25 cm isticmaalaya pixel ma isticmaalaya maanta resolution-ka oo iska yareyn karaa darabo weynaysiin karaa 300 ayaa ugu badan inta badan aniga isticmaalaa 150 ayaan ka dhigi karaa kadibna create ayaan leeyahay marka sidaan sameysid waxa ku soo baxaya daaqad noocan marka ku soo baxdo background-ka ugu horeeya ayaan dhisayaa si background-ku u dhiso waxaa tagayaa halkan meesha color-ka laga sameeyo Photoshop-ka color ayaa dhisanaya color noocan ayaa doortay halkaas aad doortay color anay iyo qaas ayaa dooranayaa kadib waxaa tagayaa halkan oo ah meesha paint-ka laga sameeyo color-ka laga sameeyo paint tool ayaa tagayaa waa ku dhufanayaa meesha background kadib background noocan ayaa sameysmay background noocan markuu ka dhigmay background-kaygi haddaan rabo background tag ayaa kasii dhigayaa waa black ayaa sii gelinayaa then waa ku dhufanayaa oo kaliya automatically way fududahay kadib waxaan sameynayaa ciyaartooyda soo gashanaya si aad ciyaartooyda ku soo gashato waxaan leeyahay file kadib waxaan leeyahay replace markaan dhaho ninka raba ayaa soo gashanaya waxaa usoo hormarinayaa kooxda Manchester City Bernardo Silva ayaa ku soo bilaabay markuu sidaan u soo galo waxa sameeynaya waa soo jiidaya geeskan ayaa keenaya hoos ayaa u dhigaya yar anigoo wax yar yareynaya hoos u dhigaya halkan ayaa soo dhigaya then calaamadaas ayaa sig siinaya saxda ama si enter ayaa leeyahay kadib mar kale
waxaan sameyn karaa waa soo dhaweyn karaa haddaan u baahdo. kadib waxaan tegayaa file mar kale, replace ayaan soo leeyahay. waxaan soo gelayaa ciyaartooy kale oo Manchester City ah. waxaa igu jiro ninkan Raheem Sterling. markuu sidan usoo galo waxaa sameynayaa si ujeedaan geeskan ayuu ujeedaa. waxaa rabaa geeskan inaa usoo jeediy. so geeskan anoo joogo sidan asoo ahaa waxaa geeskan imaanaya, right click ayaa ku hor leeyahay. kadib waxaan dooranayaa flip horizontal, dhinacan ay usoo jeedsanayaa. kadib fictus ayaa taabanaya. marka intaas sameeyo Raheem Sterling waa sikinaya, halkan ayaa geenayaa. mar kale control T ayaa leeyahay, waana yareynayaa wax yar. sidaas ayaa u yareynayaa weli. markaas saa u yareeyo calaamada saxda ayaa taabanaya. waxaan kaloo sameynayaa Raheem Sterling gadaal ayaa waxa u dirayaa, waxaa kasii marinaya, waxaa soo hormarinayaa Bernardo Silva. sidaas u sameeyo waxaa leeyahay control open bracket aan leeyahay, gadaal ayuu waxa u dirmay. waxaa moodaa inuu yar. okay, halkaas markuu yaalo mar kale ayaa waxaan doonanayaa Sergio Aguero. asna file ayaan leeyahay, replace ayaan leeyahay. kadib Aguero soo gelinaya. sidaas marka usoo geliyo Aguero-na sidan ayaa inta u keenayaa. marka halkaas keeno sidii intii Sterling ku sameeyay waxaan leeyahay flip to the horizontal. kadib dhinacan ayuu fiirinayaa Sergio Aguero, in yar ayaa asna yareynayaa. kadib sidaas ayaan ka dhigayaa. okay, intaas markaas sameeyo kooxda Manchester City ciyaartooydeedu way dhameystiran yihiin. okay, aan ku noqdo Manchester United soo sameynaya, halkan ayaa soo dhigaya anoo marayo sidii inta hadda maray ayaa maraya. marka sidaas ayaa inta kusoo dhigaya. okay, markaas sidaan sameeyay macnaheedu waxaa waaye waxaa sameeyay intii aan Manchester City ku sameeyo kala inta usoo sameeyay. saas darteed waxaan soo helay steamkana soo helo oo sidaan u sameeyay. waan garatay. marka intaas fahantay waxaan sameynaya, waxaa soo qaadanayaa toolkan oo laho rectangle tool. rectangle tool markaa soo qaata halkan hoos soo dhigaya. halkan hoos ayaa kasoo bilaabaya, kadib ilaa iyo korkan dhexdaas camala keenaya rectangle toolka. okay, rectangle tool marka dhexdan keeno boxkan ayaa ku soo baxaya. boxkan oo macnihiisu yahay ama geesaha kasoo yareyn kartaa ama se colorka ayaa u bedeli kartaa. ama haddii boxkan oo isku soo baxaynin halkan ayaa waxa ku jiro meel colorka, meesha colorka filterkaas ayaa dooranaysaa. kadib colorkan ayaa dooranaysaa, colorkan oo ah gradient color. gradient markaa ku dhuftay waxaa igu jiro 3 ilaa iyo 4 ilaa iyo noocyo badan ku jiro gradientiga. marka kan ayaa dooranaya oo ah qaybna ka banaan qaybna waxaa lahaa transparency lahaa. transparencygaas dooranaya. marka sidaas ugu dhufto transparencyga waxaa soo baxday noocaan uu noqday. hal mar ayaa ku dhufanaya, mar kale kor ayaa u qaadaya. okay, transparencyga sida ugu noqdo waxaa sameynayaa meeshan layerska qaybta midig ee ka muuqata ayaa meesha boxka hadda ayaa ku dhufanaya. mar kale sidan ayaa isoo baxaysa. marka sidan isoo baxo falaarta sirta soo furaa. falaarta kama soo furo transparency ku dhufana mar kale double click. okay, marka sidan ugu dhufto waxaa sameynayaa marka sidan isoo baxdo geeskas ayaa kasoo qabanaya, waa sidan u sikinaya. okay, tanna sidoo kale hore ayaa u sikinaya. waxay ayaa ku noqonaya gadaal u celinaya. tanna transparency-gana sidan ayaa usoo yareynaya. okay, inta markaa sameeyay okay ayaa leedahay, tanna okay ayaa leedahay. kadib waxaa sameynaysaa waxaa soo gelinayaa labada logo ee kooxaha. labada logo soo gelinayaa file, kadib replace, kadibna waxaa sameynayaa Manchester City iyo Manchester United ayaa soo gelinaya. labada koox hal mar hadaa replace soo dhahatid waxaa laga yaabaa inay culays ku noqoto. marka hal koox ayaa soo gelinaysaa, waa minimize gareynaya, kadib halkan ayaa dhigaya. kadib waa sidaas. mar kale ayaa Manchester United soo gelinaya anoo stepkii raacaya. magacyada kooxaha ayaa sameynaya. sida kooxaha u sameeyo waxaad tegayaa meeshan text, kadib halkan ayaa imaanaya Manchester United, Manchester City ayaa ku hormaraya. magaceeda ayaa qoraya, capital furanaya, Manchester ayaa qoraya, Inter ayaa leeyahay, City ayaa qoraya. kadib highlight ayaa wada saaraya, colorka ayaa ka bedelaya, color kale ayaa dooranaya. okay, inta ayaa keensanaya si farsamo ay qabto
howlaa raba inaad ka qabto. Hawsha waxaa waaye city ayaa highlight garanaya, kadib city waa weyneynaya. kadib halkan ayaa usoo qaadaya, inta ayaa keenaya. Inta markaa keeno control T ayaa leeyahay oo ah waxaa rabaa file transfer inaan ku sameeyo, yani inaa wax ka bedelo. sidaas darteed waa yareynaya marka. Okay, kadib maxaa sameynayaa Manchester City ayaa soo koobiyeynaya. sida ku koobiyeynaya laba nooc baa ku koobiyin kartaa. inaa inta kor tagtid Manchester City calaamada qabatid alt computerkaaga adoo shiftina buskan geeska qabatid aad u jiidid waa sameyn kartaa. ima waxaa sameyn kartaa halkan layout markaa ujeedid markaa click ku siisid Manchester City meesha ku qoran tahay control J ayaa leedahay, duplicate garee. kadib Manchester inaa soo qaadaysaa, City intaa soo dhigaysaa. meesha Manchester waa isku mid, maxay kula duwan yihiin? United ay kula duwan yihiin oo kaliya. marka United ku bedel. Okay, kadib waxaa tagayaa halkan, waxaa soo dooranayaa rectangle toolkan. rectangle toolkan ka soo dhigo intaa soo dhigaya, sidaas ayaa usoo dhigaya, sidaas. kadib halkan ayaa box iga soo baxaya daaqadaas oo ii tilmaamaysa colorka inaan ka bedelo. horta mid koowaad colorka ayaa ka bedelaya. labo, halkan ayaa waxa iigu jirto meel geesaha laga soo laabiyo. haddaa geeska dhexdan haddaad taabatid macnaha waxaa waaye afarta gees midba nooca ka dhigi karaa, laakiin dhexdan hadday sidaas ay tahay ee dooran tahay waxaa weeyaan sidaas ayaa dhihi kartaa. okay, waa alignmentigii noocyadaas waaye. sidan ayaa ku dhaafaysa. okay, sidaas markuu ii noqdo waxaa sameynaya opacity ayaa tegaya, waa yareynaya. marka opacity saan u yareysid, file ayaa leeyahay, replace ayaan leeyahay. waxaan soo gelinayaa calaamadii Premier League loogadiisa, halkan ayaa soo dhigayaa, wax yar ayaa weyneynayaa, kadibna calaamada saxda ayaa click siinaya. okay, sidaas ayay kusoo saxan tahay. okay, haddaa u baahdo inaa kor u qaado waa u qaadi karaa. haddaa u baahdo inaa fieldiga iyo colorka cadaanka soo celiyo, intaa kasoo yareynaya. meesha field ay ku qoran tahay oo muuska fiiri la soco muuskiga meesha ay ku qoranaysaa layout agteeda. okay, special still waxaa rabaa inaa wax yar ku weyneeyo calaamada Premier League. okay, dhexdana waa inaa geeyaa. okay, intaa markaa sameeyo waxaa sameynayaa backgroundkan ayaa ku dhufanaya. markaa backgroundka tago ayaa waxaa sameynaya file ayaa leeyahay, new ayaa leeyahay. waxaa rabaa inaa soo geliyo stadium aa soo qaatay sawir stadiumka sawirkan intee keenay waxaa ku qoray Ibtixaad stadium, kadibna waa soo geliyey sidaas oo kale, ama si kooxdaa ku qoraysa waa soo gelinaysaa. kadib markuu sidan usoo galo meeshaas kore ayaa tegaysaa, meeshaas kore oo calaamada daamuuska ujeediina click ku siinaysaa. kadib W-da kor tegaysaa, sidaas ayaa u weyneynaysaa. okay, sidaas ayaa u weyneynaysaa. markuu la sima isdhan calaamadaas ayaa click siinaysaa oo saxda. kadib maxaa sameynayaa halkan ayaa tegayaa, waxaa minimize gareynayaa awoodda amase opacity-ga ayaa yareynayaa oo stadium. okay, sidaas markuu noqdo, sidaas oo noqdo ayaa waxaa ku qoraya halkan stadiumka ciyaarta ka dhacaysa waxaa weeyaan Itixaad. far capital ayaa ku qorayaa Itixaad stadium weeyaan. kadib colorka ayaa ka bedelayaa, field ayaa tegayaa, colorka Manchester United Manchester City fanaanadeeda ayaa dooranaya. kadib click ayaa siinaya. okay, kadib halkan ayaa keenaya garoonka ka dhacayso waa Itixaad. okay, meesha ay ka dhacayso stadium aa raacinaya, stadium fartiisa asaga waxaa waaye poldi maahan, poldigaa ka qaadaya waana ka yareynaya Itixaadka. kadib waxaa sameynaya colorkana waxaa ka dhigayaa white ayaa ka dhigayaa. okay, still waa yareynaya waxyar. kadib dhexda ayaa kusoo aadinaya, dhexda ayaa sidaas ugu soo aadinaya. waqtiga ay dhacayso si u sameeyo waxaa dooranayaa toolkan oo ah rectangle tool. rectangle tool ayaa soo qaadanaya, halkan ayaa soo dhigaya.
okay colorka ayaa ka bedelaya, waxaa ka dhigaya colorka funaanada Manchester oo kale gaduudka ka dhigaya. halkan ayaa sida hore ugu sameysay kale ayaa waxaa sameynaysaa, waxaa yareynaysaa geesaha ayaa wareeg kasoo dhigaya. okay halkan dhexda ayaa keensanayaa, kadib halkan ayaa tegaya meesha ay ku qoran tahay text, kadib qoraal ayaa kusoo qoraya. qoraalkaas oo ah waqtiga ay dhacayso waa kaba soo qaad, waxaa waaye 02 March 2019. kadib waa yareynaya farta, sida highlight wada saaraya farta, halkan ayaa ka yareynaysaa cabirkeeda kor dad arki kartid. okay kadib halkan ayaa soo dhigaya, mar kale ayaa ku noqonaya toolka, kadib sidaas ayaa kale waa weyneynaya, waxaa shape-ka ku noqday waa weyney. okay saacada raaci kartaa, wax kasta raaci kartaa, wax dhib badan maahan sida rajeynayo. kadib waxaan sameynayaa, waa yareyn karaa, waa sii yareyn karaa, waqtigaas sii yareyn karaa, kor u qaadi karaa, sax ayaan leeyahay. sidaas ayuu igu soo baxayaa. kadib themekan meel walba ayaa dhigi kartaa, Facebook meel walba dhigan kartaa. waxaan rajeynayaa in cashirkan uu idin anfacay, wax badan aad ka faa'iideen. sidoo kale waxaan rajeynayaa channelkan oo cashiro mar walba aan soo dhigna aad u fara badan inaad ka faa'iidi doontaan. cashiradan waxay u qaybsamaan graphical design oo iskugu jiraan Adobe Illustrator, Adobe InDesign iyo Photoshop. sidoo kale waxaan soo dhignaa cashiro oo ah video editing sida Camtasia Studio, Sony Vegas, cashiro Adobe oo soo wadno insha Allah, After Effects, Adobe Premiere Pro. waxaa soo dhignaa cashiro teknolojiyada ka sheekeynayo iyo cashiro ku saabsan dhiirigelinta oo aad u qiimo badan.